daawadayaal saad la socotaan maalmihii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ku sugnaa magaalada Boorama hadda waxa barbarkayga midig taagan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Awdal Mudane Maxamed Aadan Suldaan marka hore telefishinka Home Cable TV waa ku soo dhaweynaya madaxweynaha Soomaaliland mudooyinkii ugu dambeeyay waxa ku sugnaa magaalada Boorama oo kaga qayb galaya xafladda qalinjabinta jaamacadda Amuud si guud marka loo soo koobo safarka madaxweynaha maxay idinka baxay ka xisbi ahaan runtii madaxweynaha safarkiisa uu yimiday Boorama ku yimiday wuxuu ku magacawnaa qalinjabin waxaase ku lifaaqnayd campaign kulano hoose oo campaign ba ku jiray waxa ka marxaatiya kulanadaas inay campaign ahaayeen hadallada ka soo baxayay kulanada ka soo dhaxbaxayay ee wax qabad marka laga hadlayo waxa kamid ahay airportkii Boorama waanu dhisaynaa haddaad kelmadda maqasho gobolka Awdal adigoo jooga campaign ba socdo garaw sida magaalada Hargeysa marka ay joogaan siyaasiyiintu waliba xisbil xaakimku laga maqlo wadani ba xamar u socda dadka maqashana campaign ba socday garaw madaxweynuhu safarka uu yimiday qalinjabinta ka sokow wax alla wax kale oo laga faa'iiday laba shay baan anigu arkay waxaan arkay hool jaamacadda Amuudeed loo dhagax dhigay oo madaxweynuhu dhagax dhigayay iyo mas'uuliyiinta la socotay waxa kale oo arkay saddex awr oo jeelka iyagana la siiyay oo maraq looga dhigay wax kale oo mashruuc oo madaxweynuhu furo gobolka iyaga ka socdayna ma jirin wax kale oo dhagax dhigayna ma jirin xitaa airportka laga sheekaysan lama dhagax dhigin waa wuxuun iska caadi Awdal iyo Muuse Biixi la isla yaqaan waa caadi taasi laakiin gudoomiyaha la socona madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu kulamo kala duwan oo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada hawsi badnaadaan bay hogaanka dhaqanka kulamadaasi waxa looga wada hadlayay arrimaha horumarka gobolka Awdal idinku maxaad ku diidaysaan in hogaanka dhaqanka madaxweynaha Soomaaliland uu kala hadlo wixii ku saabsan dhanka horumarka soo airportku qayb kama ah horumarka gobolka wallahi Imraan oo wani waxaad weydiisay horumarku waa laba shay odayda dhaqanka horta ma hayaan horumarka iyaguna mashaariicda ma keenaan mashaariicda horumarineed waxa keenta xukuumadda oo leh mustawaha xukuumadda markaa inta socota waxa meesha socday madaxweynaha dalku ahaa cidii dalka ugu sareysay bay ahayd kabinetkiisii wasiirada la socday jananadiisii ciidamada la socday hadii mashruuc la dhagax dhigay oo reer Awdal ay loo dhagax dhigay way wada hadleen oo dhaqan bay ka wada hadleen waadiga leh ee warbaahinteenu ka arki lahayd waxa kaliya inuu aragnay saddex awr oo la geeyay jeelka iyo hoolka jaamacadda loo dhagax dhigay waxaan ahayn ma jirin waxa sayiduna xan hoose ku soo baxayso ay sir yiraahdeen la hadal qaaday ereyga campaign-ka Awdal caan ka noqday airport kala dhisay waan maqalay waxa kale oo safarka madaxweynaha dheeraayo aad iyo aad u la yaabaysay halla wixii ciidan joogay maroodi jeex iyo togdheer inay la socdeen baan arkay ma garanayo madaxweynaha waxa ciidanka inta leegda soo raaciyay xun baan arkaynaa oo waxaanu arkaynaa isaga iyo reer Awdalkay kala joogan oo dareenka dhex yaalay muujinaysa ay marxaati ka tahay ciidanka raxraxantay madaxweynaha la socday gudoomiyaha kale hadii aan u dhigno mudooyinkii ugu dambeeyay xisbiyada mucaaradka waxa aad uga deeranaysaa in madaxweynaha Soomaaliland la soo dhaweeyo bulshada ayaa ugu baaqaysaa in madaxweynaha la soo dhaweyn laakiin madaxweynaha deegaanada Dila iyo Gareecawl ba si weyn ayaa loogu soo dhaweeyay baaqi adiraysan idinku maxaad ku diidanadeen in madaxweynaha Soomaaliland lagu soo dhaweeyo Boorama maadaama uu yahay madaxweynihii dalka xisbiga wadani marna ma oran madaxweynaha lama ayaan la soo dhaweyn mas'uuliyiinta tirsan xisbiga hadlay laakiin waxa weeyaan soo dhaweynta kala laba soo dhaweynta khasabka bay ka hadlayeen kuwaas laakiin soo dhaweynta madaxweynuhu shacabka u taala hadii ay soo dhaweynayaan hadii aanay soo dhaweynayn haduu isagu waxa la wixii ciidan dalka joogay soo kaxaysanayo hadii raali laga noqonayo de madaxweynaha taas ku xidhan tahay wax ku xidhan ma aha shacabka reer Awdal ku xidhan ma aha madaxweynuhu marka uu mashaariic u siday ogihiin ee ay kamid yihiin horumarka dalka qayb ay ka yihiin ee ay kamid yihiin wax qabadka dawliga ee socda ay qayb ka yihiin ee ka soo baxay mashaariicda dalka taala ay soo gaadhay reer Awdal de madaxweynaha laftiisu isaga ugu waxa soo ciidan ma soo kaxaysteen daawadaalkaasna waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Awdal Maxamed Aadan Suldaan oo telefishinka Home Cable TV ugu waramayay xafiiskiisa uu ku leeyahay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal وعمران حسين آدن
wararka telefishinka Home Cable TV Boorama.